Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada maanta waxaynu falanqeyn doonaa tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Jose Mourinho kaasoo maamulka Real Madrid ay u doorteen in dib loo soo celiyo mar kale. Jose Mourinho waa maxay sababaha Real Madrid ku qasbay inay dib u soo celiso tababarahoodii hore ee 2010 ilaa 2013 Jose Mourinho? Haddaba hadday kuu tahay markii kuu horeysay aad soo booqato subscribe noo saar, haddaad hore noola joogtana share iyo like noo calaamad waad mahadsan tahay. Go'aan ka soo baxay maamulka Real Madrid ayaa lagu sheegay inay fadhiisteen maamulka uu ugu horeeyo Florentino Perez oo ah madaxweynaha hadda la doortay eena la soo saaray go'aan ah in dib loo soo celiyo tababarihii hore ee lagu magacaabo Jose Mourinho oo soo hogaaminaya kooxda sanadihii 2010 ilaa 2013. Haddaba waxaynu fiiri doonaa rikoorada wanaagsan ee uu wato tababarahan ugu magacaabo Jose Mourinho oo soo hogaamiyo kooxooyin waaweyn laga soo bilaabo horyaalada Portugal, England, Italy iyo sidoo kale horyaalka Turkiga oo sanadkii hore hogaaminaya kooxda lagu magacaabo Fenerbahce ee ka dhisan wadanka Turkiga. Jose Mourinho wuxuu haystaa rikoorka dhibcaha La Liga ee ugu badan ee 100 dhibcood, wuxuu isagoo hogaaminaya kooxda Real Madrid sanadihii 2011 2012. ninkan wuxuu sameeyay inuu gaaro 100 dhibcood oo aan horey loo sameyn La Liga. Sidoo kale ninkan wuxuu haystaa dhibcaha ugu badan ee Premier League, tababaraha sanadka ugu horeeya ee koox Premier League hogaamiyo oo ah 95 dhibcood. waa tababaraha kaliya sameeyay sanadkiisii ugu horeysay inuu 95 dhibcood uu ku qaado horyaalka Premier League isagoo hogaaminaya Chelsea. Sidoo kale waxyaabaha xiiseynaya waxaa kamid ah in kooxdiisa Chelsea kaliya laga dhaliyay 15 gool xil ciyaareedka 2004-2005 waana xil ciyaareedkiisii ugu horeysay, taasoo ah rikoor taariikhi ah oo Premier League ah. sidoo kale wuxuu ku guuleystay horyaalada 4 dal oo kala duwan. wuxuu ku guuleystay horyaalada waaweyn ee Portugal, England, Italy, Spain. Portugal wuxuu ku guuleystay isagoo wata kooxda Porto, England wuxuu ku guuleystay isagoo wata kooxda Chelsea, Italy wuxuu ku guuleystay isagoo wata Inter Milan, Spain wuxuu ku guuleystay isagoo wata kooxda faca weyn ee Real Madrid. sidoo kale rikoorada garoonka wuxuu haystaa 9 sano oo aan laga badan 150 kulan oo gurigiisa uu ku ciyaaray isagoo leelinaya kooxaha Porto, Chelsea, Inter Milan iyo Real Madrid. sidoo kale ninkan lagu magacaabo Jose Mourinho wuxuu haystaa 3 koob ee waaweyn ee UEFA qabata, waa tababaraha kaliya haysta waay. taariikhdu wuxuu ku guuleystay dhammaan 3 tartan ee waaweyn ee UEFA ay qabato ee ah Champions League, Europa League iyo sidoo kale Conference League. ma jiro tababare hore u sameeyay inuu Champions League ku guuleysto, Europa League ku guuleysto, Conference League ku guuleysto marka laga reebo Jose Mourinho. sidoo kale waa tababarihii ugu da'da yaraa ee gaara 100 kulan oo Champions League. wuxuu gaaray 100 kulan Champions League isagoo jira 49 sano iyo 12 maalmood. mana jiro tababare oo 49 sano jiro ama ka yar oo gaaray 100 kulan oo Champions League ah. waa mid ka mid ah rikooradiisa ugu fiican ee uu haysto Jose Mourinho. waa mid ka mid ah 7 tababare ee ku guuleystay Europa League iyo Champions League, 2 kooxood oo kala duwan. Porto sanadka 2004 iyo Inter Milan sanadkii 2010. sidoo kale tirada guud ee kulamada uu tababare noqday waa 1243 kulan. guulaha uu gaaray waa 768 guul, barbaraha waa 252, guuldarooyinka waa 223. wuxuu ku guuleystay 4 jeer tababaraha ugu fiican adduunka, 2 jeer wuxuu ku guuleystay UEFA Champions League, 3 jeer wuxuu ku guuleystay Premier League, 2 jeer wuxuu ku guuleystay Serie A, 1 jeer wuxuu ku guuleystay La Liga, 1 jeerna wuxuu ku guuleystay UEFA Cup, 1 jeerna wuxuu ku guuleystay Europa League. sidoo kale waa maxay sababaha koosgareynaya in Real Madrid ay magacaawdo ama mar kale dib u magacaawdo tababaraha lagu magacaabo Jose Mourinho? aan isla soo fiirno labadii sano ee ugu dambeysay ee kooxda Real Madrid iyo sida ay ahayd. xil ciyaareedkii 2024-2025 La Liga, Real Madrid waxay ku dhameystay kaalinta labaad iyadoo heshay 26 guul, 6 barbaro iyo 6 guul daro. horyaalkana waxaa ka qaaday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Champions League waxay ku dhameystay wareegga 8-dhamaadka iyadoo ay soo reebtay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Arsenal, tiro gaaraysa 5 gool iyo gool. gooldhaliyaha ugu sareeya wuxuu ahaa Mbappe isagoo keensaday 44 gool tartamada oo dhan, 31 gool oo La Liga ah. saasna wuxuu ku noqday gooldhaliyaha ugu sareeya ee La Liga, waxaana qaatay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo ahaa sanadkiisii ugu horeysay ee kooxda. sanadkaas wax koob maysan qaadan, dhaqaale ahaan aad ay u fiicnaayeen. xil ciyaareedka 2025-26 La Liga mar kale waxay galeen kaalinta labaad, 27 guul,
5 barbaro iyo 6 guul darro. Champions League waxay mar kale ku hareen wareegga siddeed-dhamaadka waxaana soo reebtay kooxda lagu magacaabo reer Jarmal ee Bayern Munich. Coupe del Rey waxaa laga reebay wareegga 16-ka. Super Cup waxay galeen kaalinta labaad oo Barcelona ayaa kaga qaaday 3 gool iyo 2 gool. Mbappe oo dhaliyay 25 gool oo La Liga guud ahaan wuxuu sameeyay 42 gool dhammaan tartamada. Isbedel tababar ayaa dhacay sanadkan. Xavi Alonso ayaa la ceyriyay bishii Janaayo sidoo kale inta xil ciyaareedka dhiman waxaa dhameeyay ninka lagu magacaabo Alvaro Albiol. Haddaba tababaraha cusub ee Real Madrid ee 3 sano soo socota waa Jose Mourinho isagoo maamulka kooxda ay siiyeen 3 sano laga bilaabo 13 Juulaay sanadka 2026 ilaa ay laga gaaro 30 Juun 2029. Tababaraha Real Madrid wuxuu ahaanayaa Jose Mourinho. Haddaba adigu maxay kula tahay Real Madrid ma ka saari doonaa 2 sano ee ugu dambeysay abaarta mise Real Madrid sidaan ay ku sii socon doontaa? Fikirkaaga noo reeb qaybta faalooyinka. Haddii aad ka hesho muuqaalka iloowe inaad subscribe saarto mahadsanid.